waxaan aaminsanahay uu ma jirto waxa la kashanayay deegaanka Puntland ka jirta ma aaminsanay waxaan aaminsanahay inuu jiro siyaasi argagixisay siyaasi maanta laga qaadi rabaa ama kii xil waaya ama kii laga qaadi rabaa isaga isqarxiya gurigiisu qarxiya xaaskiisu qarxiya tusaale wax ugu soo qaadan kara nin la leeyahay Ismaan Diyaaro wiilkiisu dilay booso dhexdeeda wuxuu dilay bas xilka yaa laga qaaday waxaan xasuustaa gurigiisa dhumbu ku tuuray waxa la yiraahdaa waxa la oran jiray badowgaaye waa Saleebaan qabiil la yiraahdo hayo gurigiisu isku tuuray isaga bas dilay isbaabiye waxaan xasuustaa nin Cabdiladiif oo ahaa gudoomiyaha gobolka bari isaga isku tuuray gurigiisu ku tuuray oo maartay wiil waa la soo weeraray intuu askartiisi si laba u kala qaybiyay dadkii kuwii hore waxa ku socda nin la yiraahdo Gablan oo gudoomiyaha gobolka bari hadda ah isaga bombooyinka isku tuuray wuxuu yiraahdaa waa la soo weeraray waxa ku xigay maxay gacmo goos oo hadda laga casiday xilka laga qaado oo ahaa oo taliyaha booliiska markii waxa weeyaan awalba wixii uu qabiil ahaa oo aan weyn Maxamuud Saleebaan meesha uu maartay qoys isku koob xukunka uu ahaa hadda waxaad u malaysaa in la kala xishoonayo wali oo la wado waxyaabo aan maanka dadka gari karin tusaale ninba wuxuu ku leeyahay waa la soo weeraray waa bomba la doonaya waa maalintii xilka laga qaaday kaliya marka waxaan leeyahay